wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa waxay sidoo kale kormeer ay ku tageen qunsuliyadda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Jeddah ee wadankaasi Sacuudiga. Cali Kuus mar kale wafdigii uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawaad ee uu ka mid yahay xildhibaan Mustafa Duxulu oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa kormeer shaqo ku tagay xarunta qunsuliyadda guud ee Soomaaliya ku leedahay magaalada Jeddah halkaas oo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Jeddah mudane Ilyas Sheekh Cumar ergeyga joogtada dowladda federaalka ee Soomaaliya u qaabilsan ururka iskaashiga wadamada islaamka oo ay si danjare Cabdirasaaq Siyaad Cabdi diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada qunsuliyadda haddaba wasiirka ugu sareeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawaad iyo wafdigiisu ayaa waxa intaasi kadib uu wasiir Axmed Ciise si toos ah u gudagalay ahmeedda kormeerkiisa howleed halkaas oo uu ku soo wareegay qaybaha iyo xafiisyada qunsuliyadda ee adeegyada maalmeedka u haya bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Jeddah iyo degmooyinka hoos yimaada. haddaba wasiirka ayaa intii uu ku guda jiray howshaasi muhiimka ayaa warbixin oo la xiriirta waxqabadka iyo sida ay howlaha uga socdaan halkaasi uu ka dhageystay mas'uuliyiinta qaybahaasi isagoo isla markaana uu wasiirka u gudbinayay mas'uuliyiintaasi talooyin wax ku ool ah ee si xoojinaysa dadaalka la taaban karo oo ay haatan ka wadaan fulinta istiraatiijiyada uu maamulka sare qunsuliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jeddah ee ugu talagashay ka tarjumada siyaasadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ku wajahan sidii mudnaanta koowaad loo siin lahaa adeegyada ay u baahan yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool halkan iyadoo wasiirka uu xasuusiyay mas'uuliyiinta qaybahaasi in bishii January ee sanadka 2019 uu kormeer shaqo ku yimid qunsuliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jeddah ayna haatan u muuqatay isbedel iyo horumar la taaban karo marka loo eego waqtigaasi haddaba intaasi kadib ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawaad oo kulan kula yeeshay xarunta qunsuliyadda maamulka sare ee qunsuliyadda iyo diblomaasiyiinta halkaas oo qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Jeddah mudane Ilyas Sheekh Cumar uu ka soo jeediyay warbixin kooban ee howlaha qunsuliyadda iyo soo dhaweynta wasiirka iyo wafdigiisa iyadoo diblomaasiyiin ka tirsan qunsuliyadda iyo oday ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jeddah ay halkaasi ka soo jeediyeen intii baan hore ugu sii kaxay meesha gaarsiin meel aad isleey karno way soo gaartay waan rajeynaya insha Allah wasiirkaaga iyo talooyinkaaga inaad dhegeysato qiiban shaqaalaha loo tasaartay sagaal qof ay ku leeyihiin qaybo kala duwan waa in qayb ka shaqeeyaan banaanka qunsuliyadda waxa banaanka qunsuliyadda ka shaqeeya loo tasaartay waa 8 qof waaye xabsiga dhexe waxaa ka shaqeysaa 4 qof goboladana qof aan loo joogo jeezaan loo joogo 2 qof madiina hadda qoftaan magacaabay duruufta waaye wadankan dadka fara badan dadkii u badan fi'ada ama kooxda ama mutacalimiinta ahayn sharci la'aanta haysata ayagii ay ku shaqeynayaan sharci la'aantii in badan taxriif u soo galaysa waxaa sabab dhibaatooyin badiyeen waxaan isku daynaa anaga ilaa abcad الحدود qofkaas xuquuqdiisa si uu heli lahaa inaan ka shaqeyno inta faraha badanna waa inoo soo tagashaa waxaa laga yaabaa inuu macluuf waxo oo aan baxo oo qunsulka kale qunsulka ka hor kulligana inaan xafiis ama maxkamad ama maktab al-amal ama wax inkaas in loo baahdo ama dad diblomaasi oo meesha tago oo mahad celinayna ma aragtay dadka waxa deeqa nidaam iyo kala dambeyn baa deeqa ninkan meeshan wuxuu ka sameeyay nidaam iyo kala dambeyn نور بالشق وديبي نور بالشق وقصري نور بالشق وكو أوغالي شغل سو كنت بقالي كي تحيل كنت بقالي كي محكمة كنت بقالي كي شغل كنت بقالي أنت وقفت عليه حاجات عصور عندك كان حاجات حاجة الله بحاجة haddaba ugu dambeyntii ayaa wasiir Axmed Ciise Cawaad oo kulankaasi ka soo jeeday sida ay u habboon tahay in lagu kalsoonaado xaqa isla markaana loo soo maro jawaabta iyo aragtida jaaliyadda in ay helaan in kale adeegii ay ka filayeen maamulka qunsuliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jeddah hoggaanka iyo dowladda iyo soo maragta badbadi
anyway waa ku faraxsan jaaliyadda kama faantifilayso shaqadu dee waa iska cad shaqada fiican iyada isu hadasha isma kaliso jaaliyaddiina jooga sida daahir baan qofkii aan saas weeyaa waxay qof kasta oo dadka Soomaaliya u shaqeeyay inuu saa u dhaqmo maaha wax ammaan gaar ah ku leeyahay qofka anigu haddaan shaqo fiican qabto waddanka shaqada ugu diray ammaanna waa wixii iga rabay waxa kale oo waajib ay dadka ay ugu leeyihiin ama meesha ku joogaan laakiinse waa ku faraxsanahay in jaaliyadda ay ku faraxsan tahay shaqada ay qabanayso علي جامع علمي على كوس راديو iyo telefishinka qaranka Soomaaliya dalka Saudi Arabia